filimku waxa uu ka bilaabanaysaa dugsiga Johns School ee dalka Australia, halkaas oo aan ku aragno gabar lagu magacaabo Genie iyo walaalkeed ka yar ee John oo isaguna halkaas wax ka barta. Dhinaca kale waxaan baranaynaa aabahood oo ah nin ka ganacsada saamiyada. Saddexdooduba waxay ku nool yihiin hal magaalo, balse aabahood maalmo badan ayuu murugo weyn ku jiray. Waxaa dusha ka saarnaa deymo uu ka qaatay shirkado kala duwan, sidoo kale wuxuu weli la daalaa dhacayay xanuunka furiin dhowaan ku dhacay. Sidii caadada u ahayd maalin kasta wuxuu Genie iyo John geeyaa dugsiga, laakiin maanta way ka duwan tahay. Wuxuu u soo jeedinayaa inay safar uga baxaan magaalada si ay wakhti u wada qaataan. Waxay baabuur ku galeen saxaraha ballaaran ee Australia iyagoo sii dhex galaya meel aad u fog. Genie waxay dareentay dhaqanka yaabka leh ee aabaheed. Aad buu u aamusnaa, marar badanna baabuurka ayuu joojinayay. Si kastaba ha ahaatee, arrintaas muhiimad badan ma siin maadaama uu marar badan sidan oo kale u dhaqmi jiray. Muddo kadib John ayaa gaariga ka degay oo bilaabay inuu ordo. Aabahood wuxuu ku amray inay teendho dhigtaan, isaga qudhiisuna wuxuu bilaabay inuu alaabtii dejiyo. Genie waxay fulinaysay amarkiisa, balse si lama filaan ah ayay u aragtay isagoo qori ku fiiqaya John kadibna rasaas ku ridaya. Waxay si degdeg ah ugu carartay walaalkeed iyadoo jiidatay xilli ay rasaastu ku sigatay inay ku dhacdo. Iyadoo argagaxsan oo jahawareersan ayay daawatay aabaheed oo baabuurkii dab qabadsiiyey, dabadeedna isagii istoogtay. Genie waxay gashay naxdin weyn, mana fahmi karin sababta uu aabaheed sidaas u sameeyey. Waxay u malaysay in culayska deymaha uu ku riixay quus iyo niyad jab. John oo aad u yaraa si uu u fahmo waxa dhacay, wuxuu u haystay inay tahay ciyaar. Hadda iyagoo ku godoonsan meel aan cidina joogin, Genie waxay garwaaqsatay inay naftooda isku tashadaan. Waxay soo ururisay cuntadii ay wateen, waxayna go'aansatay inay u socdaan jiho aysan garanayn, iyadoo rajaynaysa inay gargaar helaan. Kulaylka daran ee saxaruhu waa mid aan loo adkaysan karin, balse door kale ma haystaan. Waxay socdeen maalintii oo dhan, fiidkiina waxay istaageen meel sare si ay u nastaan. Waxay si taxadar leh u cuneen cunto yar, iyagoo og in cuntadoodu aysan muddo dheer sii jiri doonin. Daal awgiis waxay ku seexdeen xiddigaha hoostooda. Iftiin yar oo rajo ah subaxdii xigtay waxay sii wateen socdaalkoodii, waxayna arkeen dhagax weyn. Iyagoo rajaynaya in marka ay fuulaan ay arki doonaan waxa ku hareeraysan, ayay si dhib badan dusha uga koreen. Nasiib darro, waxay arkeen oo keliya saxare cidlo ah oo aan dhammaad lahayn oo dhinac kasta ku fidsan. Way ka degeen dhagixii, waxay cuneen cuntadii ugu dambaysay, kadibna waxay sii wadeen raadinta gargaar. Maalmo ayaa iska daba yimid, xaaladooduna way ka sii dartay. Genie way tabardaraysatay, halka John uu biyo la'aan daran la ildarnaa. Xaaladiisu aad bay uga sii dartay ilaa uu dhulka ku dhacay. Iyadoo go'aansatay inay badbaadiso, Genie waxay walaalkeed ku qaaday garbaheeda inkastoo iyaduna aad u daalanay. Inkastoo qoraxda kulul ay maqaarkeeda dilaacinaysay, haddana marnaba isma dhiibin. Ugu dambayn waxay meel fog ka arkeen geed. Rajadoodii ayaa dib u soo noolaatay, waxayna u ordeen dhankiisa iyagoo rumaysan inay biyo agtiisa yaalaan. Dareenka Genie wuu saxnaa. Waxay heleen biyo yar oo fadhiya iyo geed miro leh. Markii hore way ka shakisay miraha, balse markay aragtay shimbiro cunaya ayay go'aansatay inay ammaan yihiin. Way maydheen, biyo ayay ka dhergeen, gaajadiina way iska biyeen. Waxay halkaas ka samaysteen hoy, ugu dambayna way nastaan. Laakiin markii ay subaxdii xigtay tooseen, waxay ogaadeen in biyihii engegeen, mirihiina qudhmeen. John oo qalbi jabay ayaa Genie ku yidhi, Ilaahay ayaa naga xanaaqay, waana sababta uu biyaha nooga qaaday. Iyadoo ah walaashiis weyn, Genie way dejisay, waxayna u sheegtay in wax walba hagaagi doonaan, inkastoo qalbigeeda ay ka ogeyd in rajadooda badbaado ay aad u yaray. La kulanka yugalo maalmo kale ayaa iska daba yimid, iyagoo weli ku xaniban saxaraha adag. Markii rajadoodu sii dabar goysay, Genie waxay meel fog ka aragtay qof u soo socda. Qofkaasi wuxuu watay hub, wuxuuna u ekaa qof qabiil ka tirsan. Markuu u soo dhowaaday, waxay ogaadeen inuu yahay wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Yugalo, kana tirsan qabiilka Walkabuur. Yugalo wuxuu kula hadlay afkiisa hooyo, isagoo weydiinaya waxa ay ka qabanayaan saxaraha. Genie waxay ugu jawaabtay af Ingiriisi, iyadoo u sheegaysa inay ku godoonsan yihiin oo ay biyo u baahan yihiin, balse Yugalo ma fahmin. Genie waxay isku dayday intii karaankeeda ahayd inay la xiriirto, laakiin weli wuu fahmi waayey. Wiilkii isagoo ka niyad jabsan ayuu bilaabay inuu ka tago. Markaas ayuu John isticmaalay calaamado gacmeed si uu ula hadlo, taas oo Yugalo ka qoslisay. Isla markiiba wuxuu dib ugu celiyey geedkii, ul ayuu dhulka ku qoday, wuxuuna ka soo saaray biyo ku aasnaa ciidda hoosteeda. Biyuhu ma engegin ee waxay hoos ugu dhaadhaceen dhulka. Labada walaalo ah waxay cabbeen biyo ilaa ay ka dhergeen. Iyadoo aan haysan door kale, Genie waxay go'aansatay inay raacdo Yugalo. Saddexdoodii waxay bilaabeen safarkoodii iyagoo si tartiib ah hore ugu sii socda. Intii ay jidka ku jireen, John wuxuu arkay geel duurjoog ah oo uusan weligiis horay u arag. Yugalo ayaa istaagay si uu ugaarsado, dabinno ayuu dhigay, dhowr jeerna wuu seegay bartilmaameedkiisii. Ugu dambayn wuxuu ku guulaystay inuu dilo deero, taas oo cunto u noqotay isaga iyo labada walaalo. Arrintani waxay muujinaysaa farqiga u dhexeeya nolosha casriga oo cuntadu si fudud lagu helo iyo xaaladooda hadda oo badbaadadu ahayd halgan joogto ah. Haddii ay
aysan ugaarsan karin xayawaan waxay ku qasbanayeen inay gaajoodaan. Yugalo wuxuu kariyey hilibkii deerada, saddexdooduna way wada cuneen. Iyagoo safarkooda sii wata, Yugalo wuxuu ka sheekaynayay qabiilkiisa iyo qoyskiisa, inkastoo Genie aysan fahmi karin luqadiisa. John wuxuu Yugalo siiyey askari yar oo ay Ingiriisku sameeyeen oo lagu ciyaaro, balse Yugalo isagoo xanaaqsan ayuu iska tuuray. Ingiriisku waxay burburiyeen dhulkii qabiilkiisa iyagoo keyntii quruxda badnayd u beddelay saxare qalalan. Sidaas darteedna caybkiisa uu u qabo Ingiriiska wuxuu ahaa mid qoto dheer. Caadooyinka qabiilka iyo iska horimaadka muuqaalka xiga, waxaan aragnaa qabiilka Yugalo oo isugu yimid halkii uu aabbaha Genie ku gubay baabuurka. Waxay si yaab leh u baarayaan hadaagii baabuurka iyagoo isku dayaya inay fahmaan waxa uu yahay. Dhanka kale, John iyo Yugalo aad bay isugu soo dhowaadeen iyagoo wada ciyaaraya kuna wada xiriiraya calaamado gacmeed. Markii habeenkii la gaaray, John hurdo qoto dheer ayuu seexday, balse Genie way soo jeeday. Waxay ahayd habeenkeedii 6aad ee saxaraha, jirkeedana waxaa daboolay dhaawacyo badan. Waxay si weyn u jeclayd inay gurigeeda ku laabato. Meel fog ayay ka aragtay Yugalo oo taagan buur dusheed, isagoo ku tukanaya cirka habeenkii hoostiisa. Subaxdii xigtay waxay gaareen meel geedo laga jaray oo ay ku yaaleen barkado biyo fadhiya. Biyahaas fadhiya waxay sabab u noqdeen in cudur ku faafo deegaanka. Halkaas ayay ku hakadeen. Geniena waxay aragtay nabaro ka soo baxay dhabarka John. Yugalo oo garanayay daawo dhaqameed ayaa dilay xayawaan, wuxuuna dhiiggiisa kulul mariyey nabaradii John, taasoo wax yar ka dejisay xanuunkiisa. Maalmihii sii socday, Genie waxay la qabsatay nolosha saxaraha. Waxay noqotay qof adkaysi badan, halka John iyo Yugalo ay yeesheen saaxiibtinimo aad u xooggan, iyagoo inta badan isku fahmi jiray calaamada gacmeed. Yugalo xitaa wuxuu Genie u sameeyey dallad uu qoraxda iskaga difaaco. Maalin maalmaha ka mid ah, Yugalo wuxuu geeyey dhagax ay ku sawirnaayeen farshaxanno qurux badan oo qabiilkoodu sameeyey. Sawiradaasi waxay muujinayeen xayawaan si xad dhaaf ah loo ugaarsaday ilaa ay dabargo ku dhowaadeen, sidoo kalena waxay ka sheekaynayeen dhaqanka iyo dhibaatooyinkii qabiilkiisa. Genie waxay garwaaqsatay in Yugalo uusan weligiis horay u arag dad shisheeye. Wuxuu ku dhashay saxaraha dhexdiisa, mana uusan weligiis ka bixin xuduudihiisa. Sheekadu markay sii socoto, Genie waxay aaday inay ku qubaysato balli u dhow, halka John iyo Yugalo ay ugaarsi u baxeen. Waxay dileen xayawaan yar oo ay cuneen. Intii ay halkaas joogeen, waxay heleen buufin ay lahaayeen koox cilmi baarayaal ah oo meel u dhow ka shaqaynaysay. Waxay u maleeyeen inuu meel fog ka yimid, sidaas darteed muhiimad ma siin, waxayna sii wateen safarkoodii. Markii ay sii socdeen, waxay heleen aqal yar. Genie oo rajo ka qabtay inay dad ka hesho ayaa gudaha u oroday, laakiin aqalku cidna kuma jirin. Iyadoo niyad jabtay ayay dib ugu soo laabatay Yugalo. Wuxuu isku dayay inuu la hadlo, balse sidii caadada ahayd ma aysan fahmin. Ugu dambaynse, Yugalo wuxuu u sheegay inuu jacayl u qabo Genie. Iyadu ma fahmin waxa uu sheegayay, waxayna iska dhaqaaqday iyadoo aan wax jawaab ah bixin, taasoo qalbiga Yugalo jebisay. Isagoo u malaynaya in Genie aysan jeclayn, Yugalo wuxuu John ula baxay ugaarsi. Waxay dhex mushaaxeen keynta, ugu dambayna waxay gaareen waddo u muuqata mid magaalada tegaysa. Laakiin John oo yaaban ayaa arkay Yugalo oo ka fogeynaya waddadaas. Odayaasha qabiilkiisa ayaa baray inuu ka fogaado waddooyinka iyo khatarta magaalada, wuxuuna si buuxda u raacay taladooda. Waxay ka dhaqaaqeen waddadii, waxayna bilaabeen inay ugaarsadaan dibi duurjoog ah, hase yeeshee rasaas ayaa meel u dhow ka dhacday. Yugalo wuxuu arkay laba ugaarsade oo qoryo wata oo u soo socda, kuwaas oo meel fog wax kaga ugaarsan karay. Ugaarsatayaashu si naxariis darro ah ayay xayawaanka u dili jireen, iyagoo meydadkooda halkaas uga tegaya inay qudhmaan, maadaama ay taas u ahayd madadaalo xun. Yugalo markuu arkay arrintaas, qalbigiisa waxaa galay jahawareer. Wuxuu rumaysnaa in habka ay wax u ugaarsanayeen uu khaldan yahay, balse isla markaana wuxuu isweydiiyey inuu isagu liito maadaama uusan sidaas oo kale ugu guulaysan karin ugaarsiga. Wuxuu islahaa, ma ku fashilmay socdaalkayga walkabuudka maadaama aanan si degdeg ah u ugaarsan karin sida iyaga. Ma uusan fahmin qoryaha ay adeegsanayeen, arrintaasina aad bay u niyad jebisay. Walkabuudka isagoo fikir qoto dheer ku jira, Yugalo keligiis ayuu ka dhaqaaqay. Genie way u yeertay, laakiin uma jawaabin. Ugu dambayn wuxuu jiifsaday agagaarka meydadka dibiyada ee ugaarsatayaashu dileen. Wuxuu jirkiisa mariyey dambas iyo calaamado laga sameeyo dibiga, kuwaas oo ahaa dhaqan soo jireen ah oo qabiilkooda ka tirsan. Qofna ma ogeyn waxa maskaxdiisa ka guuxayay. Markii dambe, Yugalo wuu soo noqday, wuxuuna Genie hortiisa ka bilaabay qoobka ciyaar dhaqan ah, isagoo jirkiisa ay ku sawiran yihiin calaamadahaas. Dhaqankiisa, qoobka ciyaarkaasi wuxuu astaan u yahay muujinta jacaylka iyo dareenka qalbiga. Laakiin Genie oo aan garanayn macnihiisa ayaa ka baqday, dabadeedna way carartay. Yugalo ma uusan joojin qoobka ciyaarka. Wuxuu sii waday ilaa fiidkii, kadibna habeenkii oo dhan, isagoo go'aansaday inuu dareenkiisa u muujiyo. Genie iyo John oo aan waxba ka ogeyn ujeeddadiisa ayaa habeenkii oo dhan wada sheekaysanayay. John wuxuu Genie u sheegay waddadii uu hore u arkay. Geniena waxay la yaabtay sababta Yugalo ugu sheegi waayey. Ma aysan ogeyn in Yugalo uusan rabin inay ka tagaan, maadaama uu aad ula qabsaday. Si kastaba ha ahaatee, Genie waxay go'aansatay
go'aansatay in subaxda xigta ay raadiyaan waddada oo ay halkaas ka baxaan. dhanka kale yugalo habeenkii oo dhan wuu sii ciyaarayay isagoo weli rajo qabay. markii waagu baryay Genia iyo John waxay isu diyaariyeen inay baxaan. Genia waxay ogaatay inuusan yugalo muuqan waxayna u malaysay inuu gurigiisii ku laabtay. laakiin markii ay bannaanka u baxeen waxay arkeen meydka yugalo oo geed ka laadlaadsan. aragtidaasi aad bay u argagixisay Genia. shalay ayuu caafimaad qabay, xitaa hortooda ayuu qooka ciyaaray. maxaa ku kalifay inuu sidaas sameeyo? waxay jirkiisa ka qaaday qudhaanjadii dusha ka socotay kadibna way iska dhaqaaqday iyadoo og inaysan jirin sabab ay halkaas ugu sii nagaato. hase yeeshee su'aalo badan ayaa maskaxdeeda ku haray. miyuu yugalo isdilay sababtoo ah wuxuu dareemay inuusan ahayn ugaarsade wanaagsan? ma culayska dhaqanka qabiilkiisa ayaa saarnaa? mise wuxuu sidaas u sameeyey sababtoo ah Genia kama aysan aqbalin jacaylkiisii? ugu dambayn Genia iyo John waxay heleen xero u dhow warshad ay shaqaale ka shaqaynayeen. mid ka mid ah shaqaalaha ayaa ku hadli karay af Ingiriisi wuxuuna ka caawiyey inay dib ugu laabtaan magaalada. sannado ayaa ka soo wareegay. Genia way kortay, way guursatay, waxayna sii waday nolosheeda. si kastaba ha ahaatee yugalo weligiis kama bixin xusuusteeda. waxay xasuusataa wax kasta oo uu baray iyo xiriirkii qotada dheeraa ee ka dhexeeyey, balse hal su'aal ayaa mar walba ku soo noqnoqota maskaxdeeda: maxaa ku kalifay inuu sidaas sameeyo? dalka Australia waxaa jira dhaqan ay leeyihiin qabiilada asaliga ah ee aboriginalka, kaas oo carruurta marka ay gaaraan dada hal 6 sano loogu diro duurka muddo bilo ah si ay u bartaan xirfadaha badbaadada iyo isku filnaanshaha. safarkaas waxaa loo yaqaan walkabuud. sheekadanina waxay ahayd walkabuudkii yugalo. intaas ayay sheekadu ku dhammaatay. waxaan rajaynayaa inaad ka heshay sheekada. fadlan isdiiwaangeli, subscribe kana riix astaanta gambaleelka si aad ula socoto muuqaalada cusub ee soo socda.